بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة أحبتي في الله waxaanu ku soo jirnay kitaabkeennii suwaru min xayaati asaxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxaanu soo gaarnay darsiga 109 ee kitaabkeenna waxaanu dhexda kaga jirnay saxaabigii la ohan jiray suhayb binu sinaan arruumi qisadiisa ayaa gebagaba inoo ahayd walamaa adina arasuulu rasuulku markuu u fasaxay liasxaabihi asxaabtiisa markuu u fasaxay bilhijrati inay baxaan oo ila almadiinati madiine ay aadaan markii lagu dhibay maka waa tii nabiga uu u fasaxay saxaabadu inay halkaa iyo madiine qabtaan casama wuxuu go-aansaday suhayb wuxuu go-aansaday calaa an yamdiya inuu baxo oo uu tago fii suxbati rasuuli wa abibakrin abubakar iyo nabigu sala allahu calayhi wasalama inuu la saaxibo oo uu sii raaco la jidmaro ayuu go-aansaday waa tii suubanuhu iyo abubakar ay israaceen oo habeen madow ay maka ka baxeen si tuuganimo ah god iyo meel halis ah ay galeen kadibna qisadoodii waanu soo marnay ay kasii baxeen laakina quraysh shacarat waxay dareentay bicasmihi saxaabigan suhayb ah go-aankiisibay dareentay cala alhijrati hijro uu go-aansaday in ninkani uu isdiyaariyo nimankii baxay nabiga iyo abubakar inuu raaci rabo ayay ogaadeen fasaddathu way ka jeedisay quraysh oo way u diiday can gaayatihi yoolkiisa iyo go-aankiisibay u diiday fasaddat way leexiso way jeedisay oo way diiday quraysh hu suhayb waxay ka reebtay can gaayatihi yoolkiisa iyo dantuu lahaayo inuu hijroodaa bay u diiday wa aqaamat waxay duldhigtay calayhi korkiisa alruqabaa'a kuwa ilaaliyo ciidamo ilaaliyaa la duldhigay xataa laa yaflita si uusan u fakanin min aydiihim gacmahoodii uusan ooga bixin oo uusan ooga fakanin oo wayaxmila uusan u qaadan macahu la jirkiisa maa uusan u qaadan darathu ay u darartay calayhi dushiisa adtijaaratu ganacsigii min fidatin fida ah wa dahabin dahab ah ninkan markii la dareemay oo quraysh dareentay inuu bixi rabo ciidan baa la duldhigay waardiyaa la duldhigayoo waxaa la yidhi ninka yuusan naga fakanin hantidan faraha badanee maka uu ku shaqaystayna yuusan qaadanin oo dahabka iyo fidada ah hala ilaaliyaa layidhi ninka yuusan dhaqaaqin wa aqaamat waxay duldhigtay calayhi korkiisa alruqabaa kuwa ilaaliyo xataa laa yaflita si uusan u fakan min aydiihim quraysh gacmahoodii uusan oga baxsan ayaa la duldhigay dad ilaaliyo oo wayaxmila uusan u ximbaaran macahu ninkan suhayb la jirkiisa maa darathu waxay u darartay waxay u faa'iiday baa laga wada maa darathu waxay u darartay calayhi isaga dushiisa adtijaaratu ganacsigii uu ku jiray wuxuu ka faa'iiday min fidatin wa dahabin dahab iyo fida ah inuusan qaadan asna uusan dhuuman baa layidhi hala ilaaliyo dalla suhaybun suhayb wuxuu ahaaday bacda hijrati rasuuli wa saaxibih suubanaha hijradiisa iyo saaxiibkiisa abubakar ee gadaashooda wuxuu ahaaday yataxayanu mid gaadgaadayo alfurasa fursooyinka ayuu gaadgaadayey lilixaaqi si uu oga daba tago bihimaa nabigii abubakar falam yuflix kuma guulaysan jaanis buu marba raadinayay si alla siduu ku fakan lahaa ayuu ilaalinayay taxayunka waxaa weeye yataraqab wuxuu sugayey jaanis ilaan ilma ilaalisaa hore loo yiri moogtahay in qoladan ilaalina uu ka fakado ayuu aada ugu dadaalay oo suubanaha uu ka daba tagay abubakar laakiin ma uusan ku guulaysan sababtu waxaa weye id kaanat waxay ahayd acyunu ruqabaa'i kuwii ilaalinayay indhahoodu saahiratan mid soo jeedo calayhi dushiis
way ku soo jeeday mutayaqidatan mid baraarugsan bay ahayd lahu Suhayb ku baraarugsan dad soo jeeday ahaayeene haddana dad dhoohan ma aheene dad baraarugsan oo ninkaani tillaabadu qaadayaba kontarool ay ahaayeen sidaa daraaddeeda falam yajid ma uusan helin sabiilan waddo uu maro hayra allujuu'i marka laga reebo inuu magan galo ila alxiilati xiilad iyo khiyaana iyo farasamo inuu magan galo waxaan ka ahayn wuu kari waaye falam yajid ma uusan helin sabiilan waddo uu ku fakado hayra allujuu'i magangelid markii laga reebo ama magangelye aan ahayn ila alxiilati xiilo uu magangelay xiiladun waa farasamo in farasamo ee kaarta uu isticmaalo waxaan ka ahayn oo uu ku baxsado ninkani waa uu waayey fii daati laylatin habeen habeenada ka mid ah habeenkaasoo baaridatin aad u qabow akhara wuxuu badiyey Suhaybun Suhayb min alkhuruuji inuu baxo ila alkhalaa'i bannaanka uu aado kaannahu xaal aad moodaba isagu yaqdii inuu gudanayo alxaajata dan fa kaana wuxuu ahaa laa yarjicu midaan ka soo laabanin min qadaa'i xaajatihi xaajadiisa gudashadeeda xataa yacuuda ilayhaa haddana waabuu ku laabanaya waxaan soo marnay inuu xal kala waayey kaarta cajiib uu isticmaalay habeen aad u qabow oo dadku ay daalan yihiin oon haddee aada looga warqabi karin ayaa wuxuu iska dhigay sidii nin coloosha laga hayoo kale nin colol furan ku dhacay ayuu iska dhigay si dadkaani uu u khiyaano u farasameeyo nimankii ilaalinayay marka wuu baxayaayo bannaanku aaday alkhala waa waagi hore dee suuli iyo waxaan horumarkan la gaaray ma jirin duurkaa la aaday gabdhuhun habeenkii bay bixi jireen sidaynu ku soo marray xadiidkii caaisha maalin mayna bixi jirin dhulku waa iska bannaan dadkana dad gaajaysan bay ahayn dad wax cunaya ma ahayn ilaan colooli waxay lagu riday soo celisaa sooma dad gaajaysan bay ahayeenoo dad suuli u baahanaya maaha gabdhuhu ka habeen bay bixi jireen ragguna way bixi jireen maalin iyo habeenba haddana meesha bannaan weeye waan soo marnay maraa madax lagu duubanaya baadiyaha haddaa way ka jirtaayo si aan lagu garanin madaxaad maro ku duubanaysa qaarka dambe yaa garanayo ciddaa ta ninkan marka wuxuu iska dhigay nin suuli u baahan bannaanku aadaya markuu saas u soo noqdoba hore ka bixi maayo mogta hadduu hore ka baxo way ka shakinayaan wuu soo noqonaya waxyar markuu joogo haddana wuu laabanaya duurkii wuu aadaya waxyar markuu joogaba haddana wuu cararaya duurkii wuu tegaya wuu soo noqonaya wuu noqonaya wuu soo noqonaya wuu baxaya wuu soo noqonaya wuu baxaya wuu soo noqonaya nin wuxuu iska dhigay sakaraad oo coloosha fakatay fii daati laylatin habeen dhexdiisa habeenkaasoo baaridatin aad u qabow akhara Suhaybun Suhayb wuxuu badiyey min alkhuruuji bixitaan ila alkhalaa'i duurka uu aado ila alkhalaa'i duurka ayuu aadaya kaannahu sidii isagood moodo yaqdii mid gudanayo alxaajata dan isagoo soo suuliyeysanaya ayaad moodaa wax ka jirana lama arko fa kaana wuxuu ahaa saxaabigani laa yarjicu midaanan soo noqonin min qadaa'i xaajatihi xaajadiisa gudashadeeda oo suuliyeysi laga wado markuu ka soo noqdaba oo uu nimanka u yimaadaba xataa yacuuda ilayhaa haddana wuu ku noqonaya nimay tabarhaysu iska dhigay fa qaala bacdu ruqabaa'ihi kuwii ilaalinayay qaar ka mid a waxay dhaheen libacdin qaarka kale waxay ku dhaheen tayibuu wanaagsada naftiinna wanaajista naftiin ha wanaagsanaato ha degto maxaa yeelay fa ina allaata waalcuzza laata sanamka la yidhaahdo iyo cuzzo sanamka la yidhaahdaay ayaa shaqalaahu ninkaani mashquuliyey bibatnihi colooshiisibay mashquuliyeen oo colooshay ku dhufteen maadaama uu diinta ka baxay nebi maxamedna uu raacay labadii laata iyo cuzzo la dhihi jiray asnaamtii waweyneed ayaa habaaray ninkaani colooshayna ku dhufteen waa sakaraadoo wuu dhimanayaa bay dheheen colooshaa furantay isagaa ilaan gardarnaa asnaamtii buu ku gaaloobay asnaamtii baa habaaray colooshaa fakatay inkaarkoodii baa ku dhacay
in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu intii qur-aanka lagu sheegay ilaahyadaa ku wareemay. marka waxay leeyihiin laata sanamka la yihahday cuzo ayaa ninkani coloosha ku dhuftayoo waaba dhiman rabaayo caawo waxaa weye waaba hore gadaal u ordahayaay. caawo waardiiba looma baahna inuu iska saaxanow. huma aawow waxay u dumeen ilaa madaajicihim jiifkoodii makaanu jiifkoodii bay u hoydeen. wa aslamuu waxay u dhiibeen cuyuunahum indhahooda ilalkaraa hurdadii bay u dhiibeen. caawo waswaas badan ma jiro, odayga waa sakaraad, hor i gadaal buu u cararayaa, asnaantii baa habaartay aynu iska saaxanay dheh. waardiy badan caawo looma baahne. kadibna huma aawow waxay u dumeen ilaa madaajicihim makaanu jiifkoodii. wa aslamuu waxay u dhiibeen cuyuunahum indhahoodana ilalkaraa hurdadii bay u dhiibeen oo way saaxdeen. intuu rabay waa intaas. fatasallala wuu dusay suhaybun suhayb min beynihim dhexdoodii buu ka dhex dusay. wayamama wuxuu u jeediyey wajhahu wejigiisa shadra almadiinati magaalada madiina dhankeedii buu wejigiisa qaabiliyey. wuu ka faa'iidaystay. tasallulka waxaa weeye yatasallaluuna liwaadan buu qur-aanka sheegay, waa dhuumasho. far iyo sul inaad ku dusto ayaa tasallul yihahda. fatasallala wuu siibtay suhaybun suhayb min beynihim dhexdoodii buu ka siibtay. aayar unbuu fari suul intuu ku kacay wax suuli aadaya dee maantao dhan buu shakigiibuu ka saari mogtahay, wuu soo noqonay say islaam hor buu u dhaqaaqay. wayamama wajhahu wejigiisa wuxuu qaabilay shadra almadiina dhanka madiina. lam yamdi ma tegin hayru qaliilin in yar unbaa ka soo wareegatay calaa raxiili suhaybin suhayb dhaqaaqidiisa iyo bixitaankiisa xataa fatina lahu ilaa ay garteen ruqabaa'uhu kuu ilaalinayay. iyaga naftooda haddee waa niman waardiye ah, lacag lagu siinayo, ninkan koontaroolayo. marka isla markiiba shaki bay qaadeen, waa la soo booday. leanna intii qiyaastii uu maqnaan lahaa ka badan buu maqan yahay, waa laga warqabaa ninkani. lam yamdi ma tegin hayru qaliilin wax badan kama soo wareegin calaa raxiili suhaybin suhayb rarashadiisii dhaqaaqidiisa xataa fatina lahu ilaa ay ogaadeen ruqabaa'uhu kuwii ilaalinayay. way dareemeen isla markiiba. fahabbuu way soo boodeen min nawmihim hurdadoodii bay ka soo boodeen madcuuriina xaal ay yihiin kuwa la argagaxgeliyey, iyagoo argagaxsan. madcuuriina xaal ay yihiin kuwa argagaxsan. wamtaduu waxay koreen oy tunka oga dhaceen khuyuulahum fardahoodii bay koreen, fardihii assawaabiqa aadka u dheeraynayey. wa atlaquu waxay sii daayeen oy fasax siiyeen acinnatahaa garxirkeedii bay sii daayeen khalfahu gadaashiisa xataa adrakuuhu ilaa ay haleeleen. markay ogaadeen ninkii uusan faro ku jirin, fahabbuu way soo boodeen min nawmihim hurdadoodii madcuuriina xaal ay yihiin kuwa argagaxsan, way soo naxeen. wamtaduu waxay tunka oga dhaceen oy dhabarka ka koreen khuyuulahum fardahoodii bay koreen, fardihii assawaabiqa dheeraynayey. fardo aad u orod badan bay qaateen. wa atlaquu waxay fasaxeen acinnatahaa. acinnadu waxaa laga wadaa faraska xarigan madaxa looga xiro, afkana daciga oogaga jiro. qaar hoggaan bay dhahaan, qaarna wax kale ay ku sheegaan. garxirkii fardaha ayay sii daayeen. leanna faraska waxaa lagu koontaroolo xarigan madaxa ooga xiran, soo ma? xarigaas haddaad u jilcisan wuu ordayaa,